بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين dadka igu wada xiran dhammaan ee tobanka ku socda aad baad u maasantiin dadka kol kasta igu xiran ee wax runa iga suga intuu soo itaarsi maanta professoradu way bateen kolka bal ninkan professor isku sheega ee MMTV YouTube-kii propaganda loo wixii Djibouti min buu wareysanaya ninka wuxuu ka wareysanaya taariikh runa laakiin taariikhda runa sidii uma sheegayo dadka Soomaaliyeed ee taabuganta akhrista ayaan inila hadlaya laakiin maanta waxa ii jooga halkan professor Wacays oo arintan ka jawaabaya horta ila dhageysta ninka su'aal fiican Saleemaan waxa la oran jiray haday berberi qof facdo adana hargab ku dhici jiray marka si isugu xidhnay waad garanaysaa matalan berbera waxa isku dilay laba reer oo walaala 1847 waxa la kala oran jiray Yoonis Nuux iyo Axmed Nuux dagaalkaasi saameyn wuxuu ku yeeshay cadan wax ganacsi sanadkan uu tagin wax xoolaana laga ma dhoofin berbera bulxaarna markaa ma jirin marka cadan dhaqaaleedu hoos u dhacay ingiriisku meel uu xoolo ka iibsaday uu waayay oo 47kii way dagaalka labada reer walaalaha ku dhaxda 1847kii waa markaa Yoonis Nuux ka guurayaan berbera ee bulxaar asaasi bulxaar waxa la asaasay 1847 markii labada reer isdileen marka labada reerba waxay ka tirsan yihiin qabiilka Sacad Muuse Habarwal berberana waqtiga yeeriyada iyaga ku xoogana marka kollayba wad wada dhageysateen arinta ayaan nin walaalkaya Wacays aan ka wareysanaya oo aad wax u akhrista akhrisku waa cajiib waa aqoon soo dhaw Wacays ودوهي سلطان محمد جيل تي في انت دي سو دويسay waa maasan tahay waxaan xaga ka samalaamaya Soomaali Maxamed iyo maaragtay reer Djibouti yaan xaga ka soo wala salaamaya waa maasan tahay wadoohay ninkan maaragtay professorka lagu sheegayo MMTV shanka propagandka uu wareysanayo taariikhdan waa taariikh jira laakiin sideedii ugama hadlayo oo hore baad igu sheegtay waxan maxaad ka ogtahay taariikhda runta waa maasan tahay waa run horta wuxuu xagan ka sheegayay intii soo fiican u dhageysatay wuxuu yiri ninkani inay laba reerood oo inay waalaha ay isdagaaleen isku dagaaleen berbera markay ahayd taariikhdu 1847 oo jilib labadii reerood kii reerkii laga adkaaday inay imaadeen bulxaar ay asaaseen first of all horta bulxaar waa magac ciise oo uma maleynayo inay imaadeen ay asaaseen bulxaar waa meel qadiimiya oo ifaad maaragtay jiri jirtay oo waxaad arkaysaa infrastructuradii qadiimiga horaad ka arkaysaa oo waa magac ciisena weyn laakiin taariikhdu wuxuu ka sheegay waa run markay imaadeen markii ugu horeysay soo degeen dhul ciise 1847 bay ahayd oo bulxaar buu ahaa bulxaarna way jirtay ahayd laakiin wuxuu ka reebay inaa laga saaray bulxaar yaa ka saaray waxaa ka saaray 2500 oo nina oo hubeysana oo ciise yaa ka saaray bishii labaad 1847 ما شاء الله taasuu ka kuma dirin uu ka gooy marka waxaad cadeynaysaa inay ay tahay propaganda oo dhulboobsi inay tahay iyay maaragtay uu dadka laga dhaadhicinaya dadka ka dhaadhicinaya ha uu legitimate uga dhigayo dhulkan inay iyagu ay leeyihiin marka waa been waayo ciisuhu markay soo degeenba way ka saareen oo waxa lagu celiyay meeshay ka yimaadeen berbera xadka noo dhaxaysa ciisaha iyo habarwal waxa weeyi waa duleedka maaragtay bulxaar yaa noo anagu xadkeenu wuxuu ku joogaa bulxaar buu ku joogaa dhulna ma raadsano cidnana ma boono marka arintani waxa ka wareemiyay Richard Burton ragii garanaya waxaan u tilmaami doonaa dadka wax garadka akhrista iyo dadka kale ee raba inay baaraan waxani inay sax iyo run tahay waa ma soo dhigi doonaa shaashadana u soo dhigi doonaa insha Allah xagan shaashada soo dhigi doonaa waa paajada 8 waxa sida tani baa ku qoran inay soo degayaan bisha labaad habar Yuunista markay saa u soo degaan waxa ima doonta Hindi iyo Carab baa soo raay doonta maalimaha kamida bisha labaad waxa ku soo duulaya 2500 oo nin ciise ah
ka saaraya wixii ma aragtay maatidana su nabad qabta ugu celinaya meesha ka yimaadeen maatida ma dilin maati ma taab wixii la dagaaltamay baa laha suuqay ma sha Allah marka konton sano kadib marka buugga la yiraahdo ninka uu qoray Lieutenant Charles North nin British sidaas la eg way ku soo noqonayaan oo way soo digi doonaan bulxaar inay sidaa kuma joogsanayaan waa dollarsi bay wadaan konton sano iyo laba iyo konton sano kadib taariikhdu markay ahayd samar baa ku qoran weliba waa soo dhigi doonaa waxay iman doonaan bulxaar kadibna waa laga saaray aad baa looga saaray waa laga suuqay markaas waxaa ku qoran inuu Lieutenant Charles North u diri doono 350 nin oo hubeysan oo British uu u diri doonaa dadkana waxba kama qaadayaan buu sheegay waayo cadadkoodii aad baan yarna u dhaahday waxa ciise weyn waxba ma ka qaadi karweyn dagaal baa ka dhacay British iyo ciise marka damacii doorku xagga kuma joogsan uu sii socday maantana waana ka arkayna xaggay joogta xaaladdu maanta ma joogto bulxaar el sheekh iyo lugahayay joogtaa Britoolana haddaan aamusno Britool xageeban ayaa la sii tegi waxaa la sheegani Zeylac haddaa sii aamusno Djibouti baa la leeyahay la waran marka waxay wadaan be waxa weeyi ciise un baa la boobaa cid kaloo la boobayaa ma jirto taariikh been loo samaysanayo marka waa ka baxay ما شاء الله مي الحمد لله dadka waxa akhriista badiya waa akhriskiina oo maaragtay in iskugu yimaada maaragtay table room iskugu yimaada maaragtay ninkan maaragtay waan doodoonayna suu maaragtay debaa kula waxeeyo hadduu isku kalsoon yahay adigoo buuggii haysta iyo isagoo buugga uu soo qatay wuxuu ka goynayo adiga sheegaya 8 ka baashka tiri waad sheegtay halka ku qoran tahay oo soo dhigi doonaan xaga ma soo dhigi doonaa insha Allah halkan TikTok aan soo dhigi doonaa imikada baan soo dhigaynaa waka kolka beenta dadka maamul goboleedka Madaleyska xiribi baan xirtay xiribaha in la xirto waa xaraan ragga xiribi ba xirteen waa isku wala mid dadkan oo dhan waa dad isku xidhan gudiga dibadba xitaa Djibouti daab isku xidhan yihiin Djibouti beenta lagama sheegayo beenta laga sheegay kama hadlaan dadka ka soo jeeda dadka Djibouti ku dhashay saaq kama hadlayaan madaxweynaha lacay kama hadlayaan islaanta lacay kama hadlayaan dawladda been laga sheegay kama hadlayaan sheekh iyo shariifkoogo been baan ugu ducaynay ilaahay idankiisa kolka anaku run uma sheegayna iyo wixii runa assalaamu calaykum waxaan rabay inaan liga gaarsiiyo fariin MMTV ninka professorka taariikhyaha maaragtay ka hadlay niyow ninkaay professorka niyow haddaan rabto waxaan jeclaa inaan maaragtay aan aliga gaarsiiyo fariinta xitaa aliga gaarsiiyo u sheergarayna niyow waxaan rabnay inaan taariikhaha aan ka hadalno siiba bulxaar tani inaan iskugu imanno aan ka hadalno waayo beenta aad ka sheegtay inaad dib aad u celiso haddii kale inaan ka wala doodi karno waayo dee meeshiisa ugu tagaysid MTV ugu tagaysid meesha doona ugu tagaysid waxa weeye horta maxaa yani dood inaan gelino maaha dhulkeena horta first of all rumun ka hadal markaa beentani inay iska joojiyaan horta waayo wax waan baranay wax waan akhrisanay beentani propagandki iska joojiya waan ila soconaa waan arkaynaa aamusaanteena kama dhigno inaan cabsoonayno aamusaanteena kama dhigno inaan waxna aan garanayn waxna aan akhrisan markaa niyow haddaan rabti dood waa ku furan tahay ما شاء الله kolka wakaa wacays adiga iyo qayrkaaba adiga kuwa kaa waaweynba wacays maaragtay bulaxaar iyo Zeylac iyo wixii la qoro dhan shadad bay ugu jirtaa ilaahay maskaxda u daayo isagii maaragtay dhowr kun oo ciise oo saaya jirta laakiin ciise been ma sheego laakiin beenta waa lagu gardaadiyay ku soco